odayaal beeleed xaajo goynaya ama si kalaba duqay arrin ku jira. Haddaba maya muuqaalkan kolka aad aragto maxaa kugu soo dhacaya in ay odayaashan yihiin soo uma muuqdaan odayaal beeleed xaajo goynaya ama si kalaba duqay arrin ku jira. Haddaba maya duqaydani ku muuqda waxay ka mid yihiin xubnaha tirada ah ee ka nool dagaalyahanadii iyo madaxdii jabhaddii la odhanayay WSLF Western Somali Liberation Front ama jabhaddii xoreynta Soomaali galbeed ee sanadkii 1964 lagaga dhawaaqay deegaanka Lebisagal oo ka mid ah deegaanada dhulka Soomaali galbeed. hawshan hadda maanta inoo joogtaan ee hadda aan ka hadlaynaa ma aha mid inagu maanta aan bilaabno ma aha raggan meesha fadhiya mid ay bilaabeen ma halka soo taxnaa oo ay midxilitiisii iyo dagaalkiisii iyo dhaqaajintiisii iyo waxqabadkiisii iyo u dhimashadiisii iyo ahaayeen waxay tirarkiisu waxay 1964 Lebisagal markii la isugu yimi اللي سوتها مخلط طاهري هذا الهندلي نمكي أول لفت وعسى وذاك وعسى رجعني ماشي جوبي الدجاج كتير مساحمي ويرقي هو هاي ركفر بدر شيء عبي ده بالله نسوكه بكريم ما عن إمك WSLF ما أنت صالح رجعني هو هاي أنت هذا جوكته يا أنت اللي متى يا أنت داوعين لا يوم قلنا رجعني يسوي اللي بدأ وتاجي كواس مسمى هاي نوع وديتا إنه يريد رجع كل كي يعرف ويساوي كل جري إثيوبيا قعدت هنا بقطار كوسكتي حوكيدي من جيسي لا تقال لما يسوي عيد مديسي السوء هالكبر النفط ذو صورة معه jabhadaasi oo ah xoogii ugu horeeyay ee ka dhidhiyay in shacabka deegaankani ahaadaan hoos joogayaal guumaystaha Itoobiya tan iyo 1977 ka mid ahayd xoogagii la diriraya cadaawaha xabashida waana dagaalyahanadii meesha ka saaray halhayskii xabashida ee ahaa Soomaali qushasha. xubnahani ku muuqda waxay ka wada tirsanaayeen gaaskii Axmed Guray oo ka mid ahaa garabyada waaweyn ee jabhadaasi WSLF. waa saxaab kala raagtay oo aan kulmin ku dhawaad 40 sano. qaarkood ayaa shirkan uun markii ugu horeysay isku arkaya waxayna noqotay in dib ay isku bartaan ama isku xasuustaan. saraakiil sarsare gaashaanlayaal iyo madax sare ilaa heer wasiir rag ah baa halkan fadhiya. si guud sooyaalka jabhaddan wadaniga ah hindistay in la helo dhulkan Soomaali galbeed oo madax bannaan ayaa ah mid aynan wax badan ka garanayn ama ku cusub jiilka maanta 30 jirsanaya aan anigu ku jiro. walow ay duqoobeen qaarkood haddana waa rag ay ka muuqanayso taktikooyinkii dagaal iyo xirfadihii kala gedisnaa ee dirirta. intooda badanna waxa ogadooda ku yaala dhaawacyadii soo gaadhay xiliyadaas. kulankan oo agaasinkiisa waqti iyo dadaalba ku bixiyeen xubno ka mid ah dagaalyahanadan oo ku jira dagaalyahan Amiin Weerar oo halgankii kadib fursad u helay inuu ku noolaado dalka Mareykanka haatan ka mid ah qurbo joogta maalgashi ka sameysay deegaankooda ayaa markii ugu horeysay ka dhacay magaalada Qabridhax. ragii WSLF 40 kuna ninaha intan iyo 200 maqan ayaa ka nool kuwaanu dhalay taariikhdii ma yaqaanaan xabad ka qaraxday geeska Afrika tii u horeysay bay ahayd ragaas dhibkaada geedeen baa ka soo gaaray rag baa curiyaan ilaa hadda qaar baa ilaa hadda la dhaayamuuna in maanta dhagax nin la ilaa hadda uu dhaawacay reerkayga 40 sano gool marka inaynu rag weyn oo arko koow taariikhdii in la qoro oo la akhriyo oo la duubo oo dadkii la baro ilaan waa baaba'ay sanada waa la baaba'ay waa la dhimanaya hadda daraawiish 100 sano baa ka dambeysay hal qof kama nool leego hal kama nool kacaankii hal nin baa ka nool saasaa generation ku baaba'aya 100 sano 50 sano baaba'aya raggeeni 40 kuna nin aha waxa ka nool intaa in la uriyo dibna isku arkaan xubnaha ka nool halgamayaashaas in ay soo noolayaan lagana dhigo taariikh halgan oo qoran si ayna u duugobin taariikhda WSLF in la baro jiilka hana qaadaya maanta micnaha halganka iyo naftoodurayaashii curiyay in xuquuqahooda loo raadiyo dagaalyahanadaasi ku naafoobay halganka iyo in ay ka tagaan raad taariikheed oo waara waxay ka mid yihiin sababaha ay u abaabulayaan shirarkan aan looga barin deegaanka ku dhawaad nus qarnigii la soo dhaafay. xubnahan dagaalyahanada WSLF ee waayuhu kulmiyay ayaa qaatay go'aamo ay ku dardargelinayaan shaqooyin ay ka mid yihiin inay qabtaan shirweyne ka dhici doona dusha sare ee buurta Karin Mardha oo ay iskugu keeni doonaan dadweyne tiro badan laguna soo bandhigi doono sooyaalkii wacnaa iyo halgankii nafurista ahaa ee jabhadda
iyo in ay bilaabaan qorista iyo diiwaangelinta mahadhooyinkii wanaagsanaa ee jabhadda. ugu dambayn warbaahinta JTN ayaa nasiib u yeelatay inay si gaar ah ula shaqeyso soona bandhigto sooyaalkii iyo mahadhooyinkii geesnimada lahaa ee WSLF, waxaana mar dhow soo bandhigi doonaa qaybo ka mid ah sooyaalka halgamayaashii WSLF.